Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan dhiganaynaa circumference. Waa wareegga goobo ayaan dhigan doonaa insha Allah. Circumference markaan dhahayo qaacidada wata intaasaa lagu helaa waa 2 pi times r. Marka waxaan dhahayaa 2 pi waa imisa waa 3.14 baan dhahayaa times r. R-tuna wataas waa 6 baan haystaa. Isku dhafa markaa waan ku dhafanayaa. Waxaan helay markaa ku dhufo waa 6.28 ku dhufo 6 kale waxaa ii soo bixi equal baan dhahayaa markaa c is equal to waa markaan isku dhufto markaan aan isku dhufanay waxaa ii soo baxaysaa waa adiga arkaya intan oo intan aan ku dhuftay waxa weeye 37.68 mitir baan dhahayaa right saasaan ku soo saaray circumference area badkii baa noo hadhay areana maxaa lagu helaa maxayna waa intaas waa pi times r square pi intaas la misahay r-tuna waa 6da meesha ay taalla waa 6 la jibaari baan dhahayaa markaa square dhahayaa waa 36 markaa equal baan dhahayaa 3.14 oo pi-diya times 36 baan dhahayaa marka intaan isku dhafanayaa si aan u helo badkii kabacdi waxa ii soo bixi a oo waa area oo badkii u taagan intaan isku dhafanayaa markaan isku dhafto si toos aan isku dhafto waxa ii soo baxaysaa waa 113.04 mitir square bay soo baxaysaa waa su'aashii koowaad circumference iyo area baan soo saarnay haddana su'aasha labaad circumference intaasaa la siiyey intana waa inta qaacidada caadiga ahayd laba lagu dhuftay waa 2 pi times r pi-na waxay noo leegtahay waa 3.14 d-duna waa dhaxroorkii weji d waa dhaxroor diameterkii weji diameter waxaa lagu helaa waa d over 2 markaa 8 oo loo qaybiyey labaan dhahnaa 8 laba u qaybiy waa 4 marka lagu dhaho d lagu siiyo waa diameterkii waa dhaxroorkii waa intaasay noo mid tahay 4 baan soo helnay 4 lagu dhuftay baan dhahnaa kabacdi si toos ayaan isku dhufananaa waxaan dhahnaa markaa waa 6.28 oo lagu dhuftay 4 baan dhahnaa markaan iyada 4 kusoo dhufana waxay noola mid noqonaysaa markaa waa intan oo lagu dhuftay 6.28 times 4 waxaan helayaa waa 5.12 centimeter right baan dhahayaa marka iyadii saasay ka soo baxay badkii baan soo dhaqaaqayaa areadana aad wax badda isku day oo ka shaqeey waa real matters baraf iskuulna assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh